waxaan u mahadnaqanaa marka ugu horreysay Ilaahay subxaanahu wa tacaala mar labaadkana waxaan u mahadnaqanaa ciidanka qaranka oo qaybta kuwa booliska iyo kuwa qalabka sida waxaanu kala u mahadnaqanaa jaamacadda Barco oo runtii door weyn oo muhiim ah hawshan qabashada doorashada ka qaadatay waxaan kala u mahadnaqanaa dhammaan ardaydii ka qayb qaadatay qabsoomidda doorashada 3 November waxaan ayadana mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqanaa komishineerada qaranka ayaguna mar walba runtii ku fogaana si ay u qabsoomi lahayd doorasho xor iyo xalaal ah waxaan kaloo ayaguna u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha gobolka iyo degmada oo ayaguna doorkooda ka qaatay iyo dhammaan shaqaalaweynaha kale ee xarunta gobolka waxaanu bilaabi doonaa oo hadda aanu bilaabi doonaa gudageli doonaa inaanu tirino codadkii si aan u helno natiijooyinka degmooyinka iyo gobolka waxaana iminka bilaabmaya isugeyntii natiijada halkaas oo xisbiyada qaranka ururada siyaasadda komishanka doorashooyinka qaranka ay ka hawlgalayaan hawshii isugeynta iyo soo saaridda natiijada deegaanada waxaanu dadweynaha kula dardaarmaynaa inuu komishanku yahay hay'adda kaliya ee soo saaraysa natiijada rasmiga ah dadka kalena ay ka waantoobaan wararka been abuurka ama wararka lagu baahinayo baraha bulshada ee aan ka soo bixin komishanka doorashooyinka qaranka muddada waxaanu leenahay laga warsugo komishanka doorashooyinka qaranka uu shaqada gacanta ku hayo waxaanu ka digaynaa insha Allah wararka natiijada saxda horta komishanka soo saari doona wararka been abuurka aan wali maxaan ku idhaahday saxaafadda iyo dad badan ay ku mashquulsan yihiin waxaanu ka digaynaa in natiijada dhabta ay soo saari doonaan komishanka qaranku insha Allah marka ay hawshu dhamaato waxaan ka taxadiraynaa in warar beena ummadda lagu jahawareeriyo cidda maxaan ku idhaahdaa ku jahawareerisa waxaan saxayna insha Allah waxa weeyaan wuxuu ku khalkhal gelinayaa natiijada maxaan ku idhaahdaa komishanka soo saari doono ta saxda mar walba lagu dhaqmayaa waa taa uu komishanka ku dhawaaqi doono insha Allah waxaan leenahay saxafiyiinta iyo cid kasta oo maxaan ku idhaahdaa baraha bulshada isticmaasha waxaan ka codsanaynaa inaad ka digtoonaataan inaydaan baraha bulshada soo gelin natiijo aanu komishanku soo ansixinin taasaan idinka digaynaa inta inoo hadheena waxaan leenahay deganaansho iyo jawaabta uu komishanku soo saari doono insha Allah oo dhammaanba lagu kalsoonaan doono oo xisbiyada iyo ururadu hareeraha ka joogaan natiijada oo cid walba ay saxiixi doonto insha Allah marka ay xilligeeda gaadho in lagu qanacsanaado